toddobadan dambiile ay maxkamaddu maanta ay xukuntay waxay ka ganacsanayeen duurjoogteena oo ay ku hayeen ganacsi sharci darro waxaana xilligaa lagu qabtay 7 xabo oo haramacada 4 ka mid ah ay dhinteen 3 ay nool yihiin maxkamadda gobolka saaxil qaybteeda ciqaabtu waxay dambi ku heshay ka dhana ka ganacsiga duurjoogta dambiilayaal Umar Xasan Umar ina Nuur Abbas iyo Najiib Salim Maxali ina Xumeed Axmed 20 jir ah oo iyagu dad ajaanib ah waxaana midkiiba ku xukuntay 40 milyan oo ganaaxa waxa kale oo maxkamaddu la wareegtay kuna wareejisay qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland doontii ama laashkii ay wateen oo ah nooca loo yaqaan afdheere oo had iyo jeer ah nooca lagu talagalay inuu guro waxyaabaha kontrabanka ah doontaasna waxa la wareegay qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland maadaama ay tahay doon u taagan inay dhibaatayso qaranka waxa kale oo maxkamaddu dambi ku heshay dambiilayaal Maxamed Aadan Xasan maqana ah iyo Cabdirashiid Aadan Samatar oo isna maqana ah waxaana midkiiba ku xukuntay 3 sano iyo 3 milyan oo ganaaxa waxariga looga bilaabi doono insha Allah maalinta la qabto waxa kale oo maxkamaddu dambi ku heshay dambiile Cali Siyaad Maxamed ina Caasha Xasan waxaana ku xukuntay 1 sano xarig ciqaabeeda iyo 3 milyan oo ganaaxa waxa kale oo ku xukuntay gaarigii uu watay isagana 3 milyan oo ganaaxa adeegsanayaasha xariga waxa looga bilaabayaa maalintii la qabtay ee xorriyadda laga qaaday oo taariikhdu ahayd bishii shanaad 12keeda 2022 maxkamadduna xukunkeeda waxay u cuskatay qodobada 18 19 27 28 iyo 31 xeerka ilaalinta kaymaha iyo duurjoogta maxkamadda xukunka waxay ku dhawaaqday maanta ay taariikhdu tahay bishii 7-6 2022 xukunkan dhinacii ku qanci waaya waxa ka furan rafcaan muddada sharcigu ogol yahay ay maxkamadda gobolka saaxil ay ku xukuntay 5 dambiile oo sifo sharci darro uga ganacsanayay duurjoogteena gaar ahaan nooca loo yaqaan haramacadka runtii kiisku muddo soo socday labada ka mid waa maqanayaal 2 ka midna waa jaanib iyo hal qof oo darawal ahaa marka runtii waxaan bulshada Soomaaliland la wadaagaynaa in dhammaan waxa weeye dadka ka ganacsanaya sifa sharci darrada oo ganacsanaya duurjoogteena ama kheyraadkeena ajaanib iyo Soomaaliland iskugu jireen maxkamaddu ay ku xukuntay xukunkii ku waajibay wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimiladu waxay runtii mar walba qaranka mas'uul uga tahay ilaalinta kheyraadka nooc walba tahayba marka runtii maanta farxad gaar ah noo tahay waxaan kaloo fariin u diraynaa dadka ku hawlan ee ka ganacsanaya ama doonaya in waxa weeye kheyraadka dalka ay dabar gooyaan in waxa weeye bahda garsoorka iyo waxa weeye iyo xeer ilaalinta iyo ciidamada kala duwanba heegan ugu jiraan iyo laamaha kala duwan dawladduba in heegan ugu jiraan talaabo sharci laga qaado duurjoogtu waa kheyraadkeena waa bilicdeena waa quruxdeena wasaaraddu waxay la tacaalaysaa xanaaneynta kuwii hore soo qabatay oo waxa weeye aad u fara badan marka runtii waxaan bulshada Soomaaliland ka codsanaynaa in waxa weeye ay duurjoogtooda ilaashadaan waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaa maxkamadda gobolka gaar ahaan mas'uulkii waxa weeye garsoorihii hayay garsoor Cabsalaan oo runtii mas'uuliyad gaar ah iska saaray kiiskan iyo muddadii socday xukunkaas xafiiska xeerlaalintu uu ku qancay sidoo kale xafiiska xeerlaalintu wuxuu mahadcelinayaa ciidanka ilaalada xeebaha Jamhuuriyadda Soomaaliland sana heegan ugu jira sida ay isugu lahaayeen nabadda iyo amniga badda ciidankaas oo soo qabtay haramacadka oo la doonayay in loo dhoofiyo dalka Yemen sifa sharci darro ah bisha 7 2022 waxaana soo gaaray xukun ay gaadhay maxkamadda degmada gobolka saaxil taas oo lagu qaaday niman ka bay'ad mushtariinayay xawayaanka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ciidanka ilaalada xeebaha Jamhuuriyadda Soomaaliland saldhigga Berbera uu ka howlgal uu sameeyay
hadda koor ku soo qabtay 2 nin oo Yamaniya gaari iyo xawayaanka nooca shabeelka harbcadka iyo 2 nin oo baxsaday taas oo aan maxkamadda sidii sharcigu yahay maxkamadda u gudbinay waxa aad iyo aad noo farxad gelinaysa xukunka ay maxkamaddu riday oo ay waafajisay sharciga dadkii sida sharci darrada uga baayacmushtareynayay xawayaankeenii ama kaydkeenii dabiiciga ah ee dalkeena iyagoo iska indhatiray sharciga waddanka u yaala ciidanka ilaalada xeebaana wuxuu u xil saaran yahay inuu ilaaliyo wixii sharci darro ku soo gelaya baddeena wixii sharci darro kaga dhoofinaya wax kootarabaan dad xawayaan iyo wax kasta oo sharciga Soomaaliland opposite ku ah waxaan aad iyo aad uga mahadcelinaynaa cid kasta oo ka qayb qaadatay oo gacan ka geysatay hawsha fulinteeda iyo qabashadeeda iyo fulinteediiba gaar ahaan ciidanka ilaalada xeebaha waxaan kaloo ugu mahadnaqaynaa maxkamaddii saaka xukunka riday ee sida sharciga ah ee xeerkayga waafaqsan ay ku riday aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinaynaa xeer ilaalintana sidoo kale iyagana uga mahadcelinaynaa iyaguna sida ay iyaguna arrinka uga soo gungaareen waxaan halkan shacab weynaha reer Soomaaliya uga digaynaa dadka waxaan ku shaqeynaya ee waxaan ku jira inay ka waantoobaan haddii ay ka waantoobaan taas oo kale ma ku dhici doonto